السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحبتين قالقة ما أنت هلكن waxaan ku duubi doonaa cashirkii ugu horeeyay ee barashada Windows 11. maanta waxaan ka hadli doonaa haduu Ilaahay yiraahdo desktop iyo start menu. labadaas aan ka hadli doonaa. start menu dabcan waa badhankan iyo waxyaabaha uu qabto, balse waxaan ku hormari doonaa haduu Ilaahay yiraahdo desktop kan iyo habka aan la tacaamuli lahayn. marka koowaad waxaan ka bilaabi doonaa haduu Ilaahay ka raali noqdo habka muuqaalka ama qaabka uu yeelanayo iyo nooca uu inoogu ekaanayo desktop-keena inaan maamuli karno. waa marka koowaad halka laga maamulo waa inaad tiraahdaa meel banaan desktop-kaaga inaad right click tiraahdo, kadibna waxa kuu soo bixi doona optiono fara badan. qaarkood waa advanced oo computerka oo dhan loogu talagalay in laga maamulo, qaarna waxay ku egyihiin intan oo kaliya sida afartan kore oo kale. kan view muuqaalka guud ayaa laga maamulaa dabcan. kan habka isagana waa muuqaalka, laakiin ujeedada ugu weyn waxay tahay in habka loo kala hormarin lahaa applicationada. refresh waa iska fahmi kartaa haddii computerka culays iyo waxaad ku dareento inaad refresh caadi ah u dirto weeyaan. newna waa inaad abuurto faylal cusub adoo markaa jooga desktop-kaaga. waayahay maanta cashirkeena wuxuu ku saabsanaan doonaa insha Allah optionka loo yaqaano view iyo waxyaabaha uu qabto. hadda sida aan arkayno dhammaan faylasha xaggan inoo saaran iyo softwareadu waxay u yaaliin qaab line up ah iyo sidoo kale aadna waa u yaryaryihiin. waxaad awoodaa kuwan inaad waaweyn ka dhigato si muuqaalka aragtidooda aad ay kugu muuqdaan. waxaad awoodaa inaad dhexdhexaad ka dhigto iyo waxyaabahaas oo kale. hadda tusaale ahaan haddii aan halkan right click aan iraahdo, kadibna view aan iraahdo, medium imika haddii aan ka dhigo, waa arkaysaa way soo weynaadeen xaggan sida kaaga muuqanaysa. haddii aan mar labaad gujiyo oo aan meeshan ka doorto hadan mar labaad large, waxay noqonaysaa qaab noocan oo kale ah, way sii weynaanaysaa. waayahay aan dib ugu celiyo sidiisii hore ama sidiisaba noogu daa si aan u fahanno kuwan view-ga ka hooseeya. haddii aan iminka tusaale ahaan soo qabsano auto range, maxay faa'iido leedahay? auto range faa'iidada ugu weyn waxay tahay tusaale ahaan faylashaydu way kala daadsan yihiin oo kale. marba faylal cusub ayaan abuuray, noocaas oo kale ayay u kala daadsan yihiin faylashayda oo dhan. waxaan rabaa faylashan intaan mid mid u qaadi lahaa xaggan gee aan dhihi lahaa in hal mar si fudud. waxaa laga yaabaa faylasha xaggan kuu saaran 30 20 inay yihiin, marka way kugu adkaanaysaa inaad sinto. marka waxaa la sameeyaa auto range ayaa la sameeyaa. meel banaan ayaa right click lagu yiraahdaa, view-ga ayaa la dul tagaa, kadibna option-kan auto range icons ayaa laga doortaa. waa arkaysaa dhammaan hal meel ayay isugu wada imaanayaan. iminka waxaan rabnaa inaan fiirino align icons to grid waxa looga jeedo. iminka jag ayaa saaran si caadiga ah. haddii aan jagga ka qaado ee aan kan qabto aan soo jiido, auto range ayaa ku dhagan. dabcan aan kasoo fujiyo marka hore. markii aan soo qaado intaan dhigo, kan aan qaado xaggan iska dhigo, waa arkaysa soo maaha qaab siman uma istaagayaan. columns rows saxan ma istaagayaan. waa arkaysaa qaab qalqalooc oo kale. yacni icon walba icon kale ama software walba kuma aadana, ama file walba oo meeshan ku saaran file kale kuma aadana. saa arkayso kala qalooc waay. idan marka haddii aad rabto in line iyo line sidaan oo kale inay noqoto, waxaa la sameeyaa view-ga ayaa la taabtaa, kadibna align icons to grid ayaa la yiraahdaa. saa arkayso labadan way isku aadan yihiin, saddexdan way isku aadan yihiin, labadan way isku aadan yihiin, kan gooniyo yimid. iminka haddii aan sameeyo auto range halkoodii ayay ku noqon doonaan. marka intan waa fahanna ayaan rajeynayaa. waayahay aan sidiisii hore ku celino muuqaalka mid yaryar small icons aan ka dhigno. waayahay hadda intan dabcan view-ga intan waa fahanna rajeynaya. kan ayaa inoo hore dabcan show desktop icons waxaa loola jeedaa yacni markii aad rabto in iconada iyo faylasha xaggan kuu saaran in la arko, marka aadan doonayn aad kasoo horjeeda waxaa la sameeyaa waa la iska qariyaa, jagga laga qaada. hadda tusaalehaan haddii aan jag ka qaado oo click aan iraahdo, waa arkaysaa wixii oo dhan hawada ay ka baxeen. yacni faylasha ii saaran haddii aan file explorer gudaha aan kasoo galo gooniya u arki doonaa isaga. dabcan waa arki karaa, laakiin markii aan computerkayga soo kiciyo aan daaro wax fayla xaggan igama soo muuqan doono. taasu macnaheedu tahay inaan aniga qarsaday. haddii aan rabana dib ayaan soo saari karaa. right click ayaan meel banaan ku leeyahay, kadibna waxaan dooranayaa ama jag aan saari doonaa
show desktop icons. haddaan click iraahdo waa kuwan faylashooda dhanna waa ay soo bixi doonaan insha allah. casharkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi